isbitaalkani kalkaal ayaa ku guulaysta qalliin loo sameeyey bukaan 76 sano jira wuxuuna ka cabanayay kaadida oo dhibaysa bukaanka qalliinka loo sameeyey ee kaadi haysta kaga jirta 6 dhagax ayaa ka warramay xaaladiisa caafimaad iyo sida ay tahay aniga waxaan ahay maxamed mukhtaar iimaan waxaa jira xanuun inaa hoos dhinaca kaadida iga qabay marka wuxuu igu soo saaray dhagaxyo oo ah 6 ka mid ah 6 dhagaxyooda igu soo saareen arkay doctorka waa fiican yahay si fiican uu soo qaabili dadka meesha shaqeeyana oo kulli waxa ka shaqeeyana aalay u fiican yihiin يعني ما مليسنين يعني ميل أو إمبورتانت أو واحد لكن waa meel oo weyn oo ka shaqeeyaan intaas maqluuqa Dr. Heather oo ah dhakhtarka qallimada casriga ee kiliyaha iyo taranka ragga ayaa ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee bukaankani ka hor qalliinka kadib markaan u sameeyna baaritaan waxaan ogaanay in kaada haysta ay ilaa 6 dhagax kaga jirto kadib waxaan go'aansanay inaan u sameeyna qalliin burburinta dhagaxaantaasi kaasoo looga soo saaray dhagaxaanta ku jirto qalliinkan waanu ku guulaysanay haddana bukaanku waa caafimaad qabaa isbitaalka kalkaal ayaa mar walba u taagan xaaladahan oo kale isagoona si hagar la'aan uga hagar bixi doona bulshada la xanuunsanaysa qalliimada noocan oo kala